السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا يوتيوب جنة كي جدادو. ما أنت محاربة سدع وان كسر أركتين إن كهالله أخرس كفائدين كأوليه هاي. أنت بدن دا سومان هاي وحخرس كمحيسينه ما حنا ما آخرنه. وحنكوكو من نلاشينا سكورات كإنتان كدينا إيو جامعها. لكن اسمه سينو أخرس كود وقفكو نرشيسا كور مرنين مركا أخرسكو قفكو بني آدم كا وهر مريا حنا كعاوية إن وقفكو جارو قولوا بدن وقفكو كوها منايين تذكر حقس كعادة كديتها وكو حرة وكدوا عذرة الدلاجة جهلية يدبر دعوة كوي هاي وأخرسكو حكوا بعيا مسكحة وحنا هرسي داين السيابة كردون فكرته ay horumar ku talaabsato hadii cuntada ay koriso jirka akhriskana wuxuu koriyaa maskaxda iyo fahanka qofka bini aadanka hadba yani waxa aad leegtahay inta akhriskaadu gaarsiisan yahay yani garaadkaagu wuxuu gaarsiisan yahay hadba inta akhrido dadka kale yani waxaad ku dhaafi karaysaa hadba inta akhrido yani waxa la dhahaa شالهانا كلام هدي ما أنت قف ريو قف كاس وحكى الكلام مصري وحكى عصري حوي وحخرس قف كاس ريو أنا حخرس وحرفة ضوئية شيء أما يعني وحاول نرش كور ملي يعني وكبرت وكو آخري وبك عصري مركب حسنا سامي مد وقف كلية هاي يعني إنه قف حسبرة وقف حخرسته ويأكل الدون وقف آخري wixii ugu horeeyay ee ku soo degay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd aqri halkaasina waxa ay noo cadeynaysaa in nolosha ay tahay wax aqrin nolosha dhadan ma lahan macaan ma lahan haddii aadan wax aqrin nolosha waxa kaliya ay noo qurxin karo waa aqrinta aqrintu waxay naga saacidaysaa inay noqono kuwa noloshooda sareyso mar waliba aan wax aqrino waxa sii badanaya jiritaanka nolosheena waxay saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa cimrigeena inuu sii jiro oo ahaado miraaga ruuxa wax akhriya inta badan waxa ku dhasha fikir ah inuu wax qoro inuu wax soo saaro inuu macluumaad cusub soo saaro yani inuu yani wax cusub u keeno inta badan qof ku dhasha waayo wuxuu hayaa de xogo inta badan uu keedin jiray markaan ka hadlayno akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay maaha kuwa la soo koobi karo ummad walibana waxay horumar ku gaartaa dadkeeda oo akhriska badiya qoon fiicanna leh waana tan ay dowladaha shisheeye horumar ku gaareen inkuna dhaafeen diinteena islaamku waxay nagu baraarujinaysaa akhrinta inay tahay nolosha qofka oo dhan waana tan lagu amray nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ereygii ugu horreeyay ee la faray waxa uu ahaa akhri وأنا فرين جود ومدة الإسلام كأ مركو حربنا إن ندل استاجنا فائدين كوليه هاي فائدين كلاجد حرام وحقنت وناكسن قدر كادر نقولنا كم عنت جرات كوفك يعني محكوس يده حوي حد كالس إن النقطة قف ميزامن قف يعني مسكحي سكرتي النقطة أو عاد كوناته ده أجرته marka yani wax badan duwaag badan akhriso macluumaad kala duwan akhriso yani waxa noqonaysaa qof ka weyn da'da uu jiro waayo waxa ka akhrisay wixii adiga ka horeeyay kun sano yani wixii la qorayo adiga ka horeeyay sidoo kale yani maanta u joogtaa waxa dhacaya sidoo kale waxaad ogtahay wax soo socda ay ogtahay yani waxyaalaha dhici kara soo socda maadaama macluumaad badan hayso oo yani waxyaalo kala duwan aad akhrisay سو كلا قول كلا إحنا قلنا يا كهرتجا والولك أنت بدنا حرقنا يعني دتكو إن والول كفرمو بربرم كفرمو إن تانا واحد صوي حويه إن قفك بني آدم كأ أو يعني جهادي أكي خضنتي يعني والول كوا حكينا يسكبوه وحويه جهادي نلاش وكا خضنته يعني نلاش يوردن معنا كوي سمين نلاش واحد يردن معنا كوي سمين الساعة markii aad leedahay ujeedo saxan oo nolosha ka leedahay markii hadaf leedahay oo qorshe ku degan yahay nolosha sida inaad isweydiiso su'aalo maxaa rabtaa inaad adduunyada ka qabsato
halkee rabtaa inaad gaarto maxaad u nooshahay 5 sano kadib sidee baa noqon doontaa maxaad baran doontaa maxaad ku shaqaysan doontaa qofka amaanta tahay qof ka duwan xilmaad noqonaysaa yani qofku inuu su'aalo noocaas isweydiiyo qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa aqoon kororsi aqoon kororsi ka faa'iideysaa waxaa noqonaysaa yani qof mar walbaba ay aqoontiisu u siyaado yani maalin kastaba qof ay aqoontiisu u siyaado ayaad noqonaysaa qodobka afraad waxaa noqonaya waxa weeye wax akhrisku wuxuu kobciyaa xasuusta qofka iyo awoodiisa erey bixineed yani waxaa inta badan kaa saacidaysaa in ereyadaadu ay noqdaanin ereyo inta badan ah yani ereyo miisaan leh sidoo kale waxa weeye waxaa noqonaysaa qof inta badan hadalladiisa kontaroola wax akhrisku wuxuu rajo ku abuuraa qof kasta oo caadaysta inuu joogteeyo wax akhrisku wuxuu qofka ka dhigaa qof maskaxaan qaangaar ah oo aanay waxyaabaha maalayacniga qancin wax akhrisku waxa uu qofka kor u qaadaa heerkiisa aqooneed waxaanu qofka u sahlaa inuu si fudud ku barto maado kasta uu jecel yahay isagoo aan tegin goob waxbarasho wax akhrisku waxa uu qofka ka dhigaa qof qiimo leh dhanka fikirka iyo xogaalnimadiisa inta haddaan kusoo koobo wax akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay marka waxaan rabaa inaan haddana isdul istaago oo faa'iidooyinka sii socdeen dheefta wax akhriska laga helaa maaha mid walba dhigi karo dhibka uu leeyahay marka soomaaliduna waxay ku maamaadaa war la heliyaaba talo la hel marka waxaan dhihi karnaa wax akhrisku waxaa uga jeednaa qofka inuu u hamuun qabo inuu helo macluumaad iyo warar kala duwan sida inuu kabo aqoontiisa maskaxdiisa iyo fikirkiisa marka wax akhriska waxaa laga heli karaa meelo kala duwan sida buugaagta wargeysyada buugga internetka aqoonta guud lagu kaydiyo dhegeysiga sheekooyinka ay soo tebinayaan dadka waayo aragga waxaa jirta maamaha ay isticmaalaaniin dadka reer hindiga ah waxay dhahaaniin haddii aad doonaysa inaad ogaato qofka wax akhriska badan hadalkiisa un dhegeyso haddii uu xog iyo macluumaad ku hadlo waa akhrista weyn yani waa big reader bay dhahaan haddii kale waa waa weel maran dheefta wax akhriska laga helo laguma soo koobi karo sidaba video kooban waxaad ognahayba in akhriska uu yahay shayga koowaad ee mudan nolosha waxaanu dul istaagi doonaa haddana qodobada ugu muhiimsan ilaahay subxaanahu watacaala wax akhriska wuxuu ku sheegay aayadihii ugu horreysay ee lagu soo dejiyey nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waana iqra oo macnaheedu yahay akhri kol haddii ilaahay adduunka abuuray ku bilaabay hadalkiisii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxaan halkaasi ka garan karnaa inay waajib tahay in wax la akhriyo dadweynaha adduunku nooli waxay siyaabo kala duwan u cabiraan awoodda iyo muhiimadda akhriska xigmado badan iyo maamaayo badan ayaa lagu cabiraa dheefta wax akhriska waxaa jirta albania iyaguna maamaha ay isticmaalaaniin waxay dhahaan kuwa waxna akhriya waxna qora waxa ay leeyihiin 4 indhood oo dadka kale ay dheer yihiin sidoo kale ayaduna waxaa jirtay gabar ayaduna aad u xigmad badan ayadoo waddankeeda ma gal laakiin waxaa jirta gabar aad u xigmad badan oo ayaduna waxay tiri waxay la mid tahay in adigu tusaalahaan kale waxay tiri hal erey ama yani hal buug oo aad akhridaa waxay la mid tahay in adiga laftigaagu dib u qorto yani buuggaasi yani waa run waxaan aaminsannahay haddii aad akhrido buug يعني كل سنة كهر لا قري وهذا آخر دي ما أنت هذو يعني حد أنت هاي قف وقت جا جوجا دم بيناتها يعني صار أنا كان وضن هذا ولي قاتين هدي يعني كأخذ البوق يعني واحد البوق وضن كأكو صابسن تاريخ ديسة وعن كوي هاي دقن كيسة يعني حد أنت هاي إن أدو يعني وضن كاسو دم بأتكتي صوم مرتي ورزيسي دقن كيسي ضد كلا صور دقتي يعني أحيانا هالسودان أي كترجميسان
waxaa jira maalmaha kale iyaduna ah 3 cisho oo aad wax akhris la'aan 3 cisho yani wax akhris la'aan ah hadalku wuxuu noqdaa mala yani qofka waxa ka sii dhimanaysa waxa weeye dhadhankii iyo mataqaana ereyadii macaanaa mataqaana wax lagu qofka wax ku tibinaya ayaa ka dhimanaya mar haddii qofku inta badan wax akhrin ama wax sii siyaasan waati Soomaalida hore u tiri hoostii eege hareertii ma eego dadyoga adduunka ugu maskaxa fiican oo talentiga leh waa kuwa akhriska joogteeya ama caadada ka dhigta akhriska marka la eego shakhsiyaadkii ugu maskaxda badanaa adduunka kuwii soo maray waxay dhammaan ka sinaayeen inuu akhrisku caado u ahaa sidoo kale dadka maxaa hayday adduunka hormuudka u ah billioneerada ah maxaa hayday waa dadka inta badan wax ku ah waxa weeye wax akhriska u ah wadanka Soomaaliya Bill Gates iyo Amazon iyo يعني niman kale يعني inta badan waxay dadku dhigay waxa weeye wax akhriska marka lama soo koobi karayo muhiimadda uu leeyahay wax akhrisku marka waxaan rabaa inaan isdul istaago maadaama soo ogaanay muhiimadda uu leeyahay wax akhrisku iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bal haddana waxaan rabaa inaan isdul istaagno sidoo qofku u samaysan karaa caado wax akhris yani sidee u joogteynaysaa wax akhriskaagii oo u samaysanaysaa caado wax akhris kow waxaa ka mid ah inaad qofku isweydiiyo ujeedada wax akhrinay maxay tahay ujeedada yani wax akhrinayso maxaad ka rabtaa yani buuggan haddii akhrido yani ciwaanka haddii akhrido maxaad faa'iido ka helaysaa yani qofku inuu isweydiiyaa ujeedada wax akhrinayso markaad hesho ujeedada aad wax akhrinayso ama markaad buug akhriso kadib dheefta yani aad ka helayso yani markaas waxa ku fudaanayso waxa weeye inaad ku sii diirato inaad wixii akhriso qodobka labaad wuxuu noqonayaa waxaad xiisaynayso inaad ku bilowdo sida mawduucaad jeceshahay yani iyo inaad wax yar akhrido yani tusaalahaan haddaad buug soo galato maanta oo aad buuggii maanta yani go'aansato inaad dhammayso waxaa laga yaabaa inaad ku caajisto oo hadda akhriskii oo dhan xasaas iska disho laakiin haddii aad tusaalahaan kale maanta aad buug soo galato oo 8 ku kooban yahay akhrido ilaa 10 ama 15 ilaa hadda akhrido waxa ku fudaanaysa waxa weeye in buugga xiiso uu ku yeelo oo maalin kale ilaa 20 ilaa 30 aad si akhrin karayso marka waxaan ku sii xijinay waxa weeye qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa la imo yani wax adiga dareenka yani tusaalahaan kale wax adiga dareenka kicinaya yani buugga marka akhrinayso tusaalahaan kale يعني بوك إنا لقطه مرة بو ميركم مقطع أنا كذا سيرت يعني ما كسيحته يعني ما ده حاجة هذا لقطه بوكي مرة بالبعض حسنا نسا يعني بوك مرة بحسنا نسا وحكاية قبل نسا بوك سواء قبضته هذا خلصه يعني ميركودو إنا لقطه سيدا كلا إنا وقت أصلا ما يسوته وقت عيما وقت أصلا ما يسوته أتقوا أخذه سعد يعني وقت تلقى شيء نتبوك أخذه سيدا كلا وحاول يقضي كفراد النقانية dad wax akhriya inaan raacdo inta badan yani xal aan noloshaada dhan waxay ku xiran tahay waxa weeye 3 qof 4 qof 5 qof ay la socoto ayuun bay noloshaada dhanba ay ku xiran tahay yani haddii ayagu yihiin yani dad aan wax akhrin oo inta badan yani ka fikir duwan oo waxyaalo kale ayagana sameynaya marka kuma suurtagelayso inaad buugaaga akhriso waxay noqonaysaa inta badan in ayaga yani aad raacdo dariiqadooda aad raacdo ama waxa ay yani raadiyaan day kuba aadiyaan day meelka aadiyaan day dalxiis aadiyaan day meelka in raacdo ay noqonaysaa laakiin haddii aad raacdo qof kula hadafa oo kula hamiya kula aragtiya mataqaana wax akhriska jecel adigana waxa inta badan ku galay waxa weeye dareenayna inaad wax akhrido yani qofku markuu wax akhriyo adiguna waxa keenaya qofka yani ku dayato aad akhrido qofku markuu ka sheekeeyo yani faa'iido leedahay iyo wax leedahay iyo adiguna waxaad marba niyadu ka haysaa waxa weeye faa'iidadu leeyahay marka waxaan rabaa inaan inta ku soo koobo aad ba u mahadsantihiin walaalayaal dhammaantiin insha Allah waxaan si sharaf leh idinka codsanayaa in aad asxaabtiina sii gaarsiisaan yani dad kale si uga faa'iideystaan